halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhegaysatay waa axad 19 abriil saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 oo gowa. wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah hay'adda caafimaadka adduunka oo ka dayrisay xaaladda mas'ale COVID-19. dhalinyaro fududeeyay sida ay Soomaalidu ku heli karaan xogta sugan ee coronavirus iyo markii ugu horeysay filimkoona wali dhammaan ayaan Djibouti ka soo sii daayay bahayd aad ayay bulshada Djibouti uga heshay waayada waa sheekadoodii waa aqaladoodii waa deegaankoodii marka aad bay uga heleen adduun weynuhuna si fiican buu uga helay waayo sanadkiina soo dhaafay filimkii ugu fiicnaa ayuu qaatay waa filim ay hablo reer Djibouti mataleen oo dunida lagu soo bandhigay COVID-19 iyo duruufaha uu baday dadka barakacay wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku waa Ciise Cabdullaahi oo Axmed Nagaashiina waan idila socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay qodobada soo faahfaahsanahay noo dambeeyana dhageystayaal bal marka hore warkii dunida iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali Cabdiqaadir mahadsanid Nagaashi madaxweyne Trump ayaa sheegay in isniinta gobolada Texas iyo Vermont loo ogolaan doono in dib loo furo ganacsiyada qaar waxa uu sheegay in fayraska haatan dhaafay halkii ugu sarreysay gobollo dhowr ah ayaa madaxweynaha ku taageeray iyagoona dalbanaya in shaqada dib ay ugu laabtaan waxayna ku andacoonayaan in tallaabada guryaha jooga ah ay aad u adag tahay hase yeeshee madaxda qaar ee gobolada ayaa ka digay in haddii si dhaqsi ah loo qaado xayiraadaha ay horseedi karto dhibaatooyin dheeraad ah oo la xiriira xanuunka COVID-19. Israa'iilna waxay ku dhawaaqday inay bilaabayso khafiifinta xadidaadda bandowga oo waxaa dib loo furi doonaa ganacsiyada qaar iyadoo shaqaale xadidanna ay shaqooyinka dib ugu laaban doonaan. Ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xadidaadda adag ay horseedeen inuu yaraado faafidda fayraska corona. hogaamiyaha maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay in muslimiinta qiil loo helayo Ramadaanka haddii ay dhibaato caafimaad ku keenayso qofka. bisha barakaysan ee Ramadaanka ayaa lagu wadaa inay bilaabato 23 bishan Abriil aynu ku guda jirno. in ka badan 80 tan oo ah qalabka la isaga difaaco coronavirus ayaa goordhow la filayaa inay soo gaaraan Britain kuwaasi oo ka imanaya dalkaasi Turkiga. hay'adda caafimaadka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay in mashruucan looga gol leeyahay difaaca xirfadleyda caafimaadka waxayna ka digtay in isbitaalada qaar ay goordhow ka dhammaanayaan qalabkaasi. waxaa la aaminsan yahay in ilaa 50 shaqaalaha caafimaadka ee UK ugu geeriyoodeen coronavirus tan iyo marka uu xanuunkan safmarkaa gaaray UK. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalkaasi Jaad waxay tibaaxayaan in 44 qof oo looga shakisnaa inay ka tirsanaayeen Boko Haram oo howlgal lagu soo qabtay gudaha xabsiga lagu arkay iyagoo meyd ah waxayna u muuqataa in la sumeeyey. dacwadoogaha dalkaasi Jaad Yusuf Tom ayaa sheegay in meydadka Khamiistii laga helay xabsi ku yaala magaalo madaxda dalkaasi. mintidiinta ayaa howlgal lagu soo qabtay dhammaadkii bishii Maarso kadib markii la dilay ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Jaad. warkii subaxnimona waa naga inta Axmed. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo warkii subaxnimo inoo marinayay ayuu ahaa dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay tan iyo markii uu dunida ku baahay fayraska corona waxaa sii kordhayay qayladhaanta ka socota dunida oo dhan. wacyigelinta bulshada ayaana ahayd waxa ugu weyn ee xoogga la saarayay maadaama oo laga baqayay in dad badan oo xog la'aanta ka haysa cudurkan ay u hodo fayraskan. haddaba xogahaas baahay waxaa adkayd sida loo xaqiijiyo maadaama oo wararka been abuurka ah ee ku saabsan xanuunkan ay iyaguna aad u badnaayeen.
dhalinyaro Soomaali ah oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah ayaa si ay arrintaasi uga hortagaan una gaadhsiiyaan bulshada Soomaalida xog sugan oo fayraskan ku saabsan waxay aasaaseen barnaamij ku xidhan WhatsApp-ka oo si isdaba jooga dadka ugu wacyigelinaya iyaga oo siinaya xogtii ugu dambeysay ee 24 saacadoodba soo korodha. mid ka mid ah dhalinyarada fikirka keentay oo la yiraahdo Suleymaan Maxamed Xasan ayaa u warramay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow waxaanu ka warramayaa waxa ay tahay fikradoodaasi iyo sida barnaamijkaasi u shaqeeyaba. barnaamijkan aan aasaasnay waa barnaamij loo adeegsanayo maaragtay WhatsApp-ka oo laga heli karo macluumaad ku saabsan caabuqa hadda dilaacay ee COVID-19 ama coronavirus waayahay marka maxaa idinku dhaliyay marka inaad aasaastaan qaab ay bulshada marka xogta marka la xiriira cudurkan COVID-19 ay ku helaan? waxaa nagu dhaliyay kadib markaan aragnay wacyigelinta iyo maaragtay xogta loo baahan yahay cudurka markuu dilaacay inta badan waa la socotaa Soomaalida waxay ka haysteen maaragtay fikrad yar qaldan ay ka haysteen Soomaalida kuma dhaca iyo muslimka kuma dhaca iyo hadallo isla dhex qaadi jireen marka Soomaalida waxa islaaf garanay inay u baahan yihiin macluumaad inay u baahan yihiin maaragtay xogta hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay soo saarto iyo waxyaalahan dhan in qaab ayaga ay garan karaan oo afkoodi ah in loogu soo gudbin karo. marka bulshada sideed xogta ugu gudbisan? xogta marka hore waxaan ka soo aruurinaa ilaha rasmiga ah sida maaragtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo maaragtay wasaaradda caafimaadka talooyinka guud oo la bixiyo iyo waxyaalaha noocaas ah ilaha rasmiga ayaan xogta ka soo aruurinaa af Soomaali ayaan marka u bedelnaa markaas kadib ayaa maaragtay meel keyd ah oo WhatsApp-ka aan ka sameeyay ku jiraan qofka marka af Soomaali ayuu u dirayaa kadib waxa uu soo baxayo maaragtay jadwalkaas uu marka ka xulan karaa xogtii uu rabay nooc ay ahayd haddii ay tahay calaamadaha lagu garto haddii ay tahay sida uu ku faafo waxyaalaha noocaas ah. marka inay sax tahay xogta aad gudbinaysaan marka sidee la isku haleyn karaa? waa la isku haleyn karaa oo waxa weeysan hore kugu sheegay xogta waxaan ka soo qaadanaa ilaha rasmiga ah hay'adda maaragtay WHO iyo wasaaradda caafimaadka waxa aan soo gudbinay inta badan xog kale oo hadda maaragtay ma dib keenaysa ma ahane waa xogta maaragtay loogu talagalay wacyigelinta maaragtay dhanka caafimaadka iyo dhanka kaleba marka tale iyo tusaalada ay bixinayeen hay'adaha caalamiga iyo dawladaha kala gedisan ayaa marka soo gudbinaynaa iyagana maaragtay oo anagu u adeegsanayna qaatan WhatsApp-ka. marka qofka rabo tusaale ahaan inuu xog ka helo barnaamijkan hadda aad aasaasteen bulshada markaasi xogta la xiriira COVID-19 aad ku gaarsiinaysaan ee aanan garanayn isticmaalkiisa bal qaabku marka u soo gali karaa oo xogta uu ku heli karaa? walaahi waa istusnay dadka inta badan WhatsApp-ka way isticmaalaan qofka aan qori karin hata si ugu faa'iideysto waxaan sameynay xogtii waxaan u bedelnay qaab cod ah ayadoo codaysan ayuu qofka ka heli karaa hadduu lacala yiraahdo su'aal hadduu soo diro su'aashii ayadoo cod ah jawaabta ayadoo cod ah loo soo diraya isla markiiba marka dadka aan akhrin karin qaabkaas ugu faa'iideysan karaan. laakiin qofku waa inuu marka hore xubin ka noqdo Soomaha barnaamijkan oo marka hore xubin ka noqdo oo lambarkiisa uu ku darsamo oo markaasi la aqbalo kadib uu heli kara xogta. waa inuu lambar waxa jirtaan soo gudbinay waa inuu lambarka hayso lambarkaas marka wuxuu u dirayaa ereyga Soomaali markaas waxa uu soo baxay list uu ka xulan karo xogta asaga uu markaas u baahan yahay marka lambarkaas rabnaa inaan shaacino oo bulshada maaragtay aan ku faafino ay marka kala socdaan. marka xogta qofka uu soo dhacayso markuu dalbado oo xogta marka xaqiina ka dalbado marka ma qoraalba mise codna uu la socdaa? macnaha qoraal iyo codba way jiraan marka qofka sidoo soo codsaday ku xiran tahay haddii ayadoo cod ah dirso hadduu ku dhufto lacala oo lambar ayadoo cod ah uu kaga soo jawaabo codkii uu soo dhacay ayadoo qoraal ah hadduu kaga soo jawaabana ayadoo qoraal uu soo dhacayso. marka barnaamijkan maalgelin intee lag ayaad ku bixiseen mise waxaad tihiin dad iskoodii soo abaabulay oo tabarucayaal ah? walaahi dad maaragtay dhalinyaro ah oo xirfado kala gedisan leh oo isku yimid oo si mutadawacnimo ah ugu shaqeeyay barnaamijkan ayaan nahay waa dad kala gedisan dad waxa ku jira maaragtay dhaqaatiir ah oo isxilqaamay oo Soomaali ah waxa ku jira dadka maaragtay wax turjumo oo maaragtay noo fududeeyeen inay maaragtay Soomaali u bedelaan wixii Ingiriiska ku qornaa waxa maaragtay ku jira dhalinyaro maaragtay si mutadawacnimo dadku wacyigeliso marka dhowr ilaa 15 qof oo waxaan nahay maaragtay isku raay aheed oo maaragtay kadib marka social media isku aragnay nin walba asagoo wacyigelinta dhankiisa ka wada intuu isku nimid aan niri barnaamijkaas wax u qabanaa markaas marka meesha isku keenna maskaxda marka barnaamijka hadda dhalinyarada aad sheegtay 15 ah ee wada adigu aad kamid tahay halkay kala joogan? walaahi dunida daafaheeda kala joogan qaar waxay joogaan Europe iyo Mareykanka qaar waxay joogaan Kenya qaar waxay joogaan Soomaaliya qaar waxay joogaan maaragtay Ethiopia marka inta Soomaaliya ay degta dhan way wada joogaan oo marka dad badan baa ka tirsan oo meelaha kala gedisan degan. ugu dambeyn marka maxaad bulshada soo gudbin lahayd si barnaamijkani marka ay ugu taxnaadaan ama ay uga faa'iideystaan fariimaha caafimaad ee ku gudbinaysaan? bulshada horta waxaan soo jeedin lahaa wacyigelinta iyo maaragtay talooyinka wasaaradaha kala gedisan caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga ay soo gudbiyaan in dhammaan la wada qaato calaamadaas la wada qaato cudurkan waa cudur halis ah waa cudur aan dadka kala soocaynin waa cudur gaal iyo muslim ku dhacayo xogta qaldan oo haystaan iyo maaragtay wararka qaldan oo la isla dhaxmarayo Soomaali kuma dhacay hal iska dhaafo cudurka maaragtay hal iska ilaaliyo ilaahay wax ilaaliyo marka dadaalna hal muujiyo insha Allah.
Suleymaan Maxamed Xasan oo waramayay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ahaa. dhegeystayaasha BBC-da qaarkood ayaa haddaba aragtidooda ka soo dhiibtay arrintaasi oo bogaadinaya dhalinyaradaasi, waxaana ka mid a dadka bogaadinaya Cabdirashiid Maxamed Cumar oo jooga magaalada Boorama. waxaanu leeyahay waan bogaadinayaa dhalinyarada Soomaalida ee sameeyey sida ay dadku ku heli karaan xogta sugan ee coronavirus, waxayna ila tahay inay qaadeen tallaabo wanaagsan oo looga baahan yahay inay qaadaan dhalinyarada kale ee dalkuna. faarax maxamed xirsi good oo isna jooga gaalkacyo ayaa waxa uu leeyahay runtii waan bogaadinayaa dhalinyarada Soomaalida ee fududeeyey qaabka Soomaalidu ku heli karaan xogta sugan ee safmareenkan ee coronavirus, waana tallaabo soo dhoweyn mudan. waxaana leeyahay buu yidhi dhalintaasi hore u sii wada dadaalkiina wanaagsan. waa tay qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo aragtidooda cabirayay ayay kuwaasi ahaayeen. bal haatana dhegeystayaal xagga iyo Jabuuti. aflaamtu waa qayb ka mid a farsamooyinka xogta lagu gudbiyo, walow ay yar yihiin dadka Soomaalida ah ee aflaanta sameeya. ayaa haddana dhowaan waxaa internetka ku faafay filim ay jilayaan dad Soomaali ah oo soo baxay. filimkaasoo lagu magacaabo Dhalinyaro ayaa waxaa lagu dhigay magaalada Jabuuti, waxaanu helay bilado caalami ah. luula cali ismaaciil oo ah soo saaraha filimkaas islamarkaana iyadu qortay qisada filimku ku socdo ayaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ka wareystay waayihii filimkaasi soo maray iyo sida ay bulshada dalkaasi aan idhaahday uga falcelisay qisada uu ku salaysan yahay iyo inay jilayaashu hablo u badan yihiinba. dhalinyaro waxa weeyaan waa 3 gabdhood oo reer Jabuuti ah oo high schoolka sanadkii ugu dambeysay ku jira. marka waqtigaas waa 17 jir 18 jir. marka su'aalo badan bay dhalinyaradu isweydiiyaan markay waqtiga tahay, waayo waa waqtigay jaamacadda u gudbayeen, waa waqtigay haasawaha baranayeen, waa waqtigay noloshooda hadhow had soo baran shaqo maad heli doontaa. aduu su'aalo badan bay isla sheekaysan dhalinyaradu waqtiga, waayo waa waqtigay mustaqbalkooda hadhow ka fikirayaan. moogta jaamacadda ma Jabuuti baad ka dhigan ma qurbaha tagi. markaa filim waxaa ka sheekay waxaynu ognahay ka Soomaali ahaan inaynaan aflaamta isku fiicnayn oo aynaan badan aynu nahay dad daawadoon, laakiin qaybta jilliinka aysan Soomaalidu ku badnayn. bal 3 hablood ee filimka hogaaminaya ee jilaya ma horey u ahaayeen jilayaal aflaamta jila mise adigaa soo xushay? haddaad soo xulatay maxaad ku soo xulatay? waxa weeyaan walaal, habluhu waa hablo wax markii daymiku waa gabdho waaweyn, markii 18 jir bay ahaayeen. marka saad u tiriba dad badan oo jila inayna jirin. xafiiskii dadkan kuusoo egeegayay odhanaysid qofkaas noocaasaan u baahanahay iisoo auditionka ii keena ayna jirin. waxaan de isku dayay inaan anigu helo dadkii ii jili lahaa. marka high schoolada badan ee Jabuuti baan ku wareegay. marka meelaha 200-300 oo gabdhood ayaan la kulmay, aan la sheekaystay. marka 3 habloodeed arkaysay ayaa de aan ka helay oon isiri mas'uuliyadda way qaadi karayaan. Jabuuti waxaynu ognahay inaysan jirin shirkado aflaamta maalgeliya, waayo aflaamtu waxay u baahan yihiin meelo kala duwan la tago, hanti badan baa ku baxda. filimkaaga maalgelintiisa bal sidaad ku heshay? taa wallahi waxaan ku ogeyn intaan ognahay Jabuuti inayna lahayn filmo badan iyo de ayna filmo badanna maalgelin. haddana wallahi gigtiiba qayb libaax ayay Jabuuti ka qaadatay markay noqoto filimkan dhalinyaro. marka Jabuuti waxa u jeedaa ganacsiyada iyo dawladdu ba ahaatee labaduba way garab gareen qayb libaax ayay ka qaateen. inta kalena waxa filimkan ila waday saad u ogtahayba filimku qof ku dhaata maaha shaqo qof ku dhaata, waa shaqo bulshadeed. waxa ila waday dad Faransiisa. bal marka la eego duubistiisii iyo bilowgiisii horeba caqabadihii ka hor yimi intii filimkaas socday maxaa ka mid ahaa? wallahi caqabada ugu weyneed waxay ahayd inkastoo ogtahayba filimka marka la leeyahay lacagtiisa de la doondoonayo ay meel kasta ku adag tahay. Jabuuti una aan ahayn, haddana Jabuutina way ka sii xag jirtaa, waayo de dhaqan filinadii waxaa meel yihiin moogtahay. marka caqabada ugu weyn waxay ahayd caqabada lacagta. inkastoo haddana aan xagga lacagta Jabuuti ayna u kala harin, haddana waqti badan bay qaadatay. waayo ma jirto meel aad faylkaaga geynaysaa aad odhanaysaa filimkaasi intaasaa ku baxaysay de intaasoo waxay ahayd fundraising. kolba qofaan de kolba xafiis baan u tegay ayaa oo markaa iga caawiyey. marka caqabada ugu weyn waxay ahayd lacagta la soo gurayo iyo de lacagta helistiisa iyo dadka inaan ma nihin dhaqan filineeda waa inaad qof kasta ka dhaadhicisaa filimkan wuxuu u jeedo, waxaad u jeedid wuxuu yahay, waxa ka soo galay waxyaalaha oo dhan. laakiinse duubistii markaan ku duubay Jabuuti filimka oo dhan Jabuuti waan ku duubay,
wallaahi wax caqabada oo iga hor yimid ma jirin. filinkii uu soo baxay oo meelo badan baad ku soo bandhigtay, bal falcelintii markii dadkii daawadeen Soomaalida iyo dadka kaleba maxaa kaaga soo noqday? wallaahi aad iyo aad markii ugu horeysay filinkoona weli dhammaan ayaan Jabuuti ka soo sii daayay bahayd. marka aad ayay bulshada Jabuuti uga heshay, waayo waa sheekadoodii, waa aqaladoodii, waa deegaankoogii, marka aad bay uga heleen muuqt. adduun weynuhuna si fiican buu uga helay, waayo ugu yaraan meelaha 15 festival ayuu ka qayb galay. festivalkii sanadkiina soo dhaafay bishii afraad filinkii ugu fiicnaa ayuu qaatay. inanta ku jirtaa ee deeqa matalaysaana waxay u qaaday jiliyaha ugu fiican gees Africa oo dhan. marka wax lagu farxo oo Jabuuti hirgelinaysa, amba ha ahaado qof Soomaaliya, amba qof Afrikaanka kala ahaado, amba qof cad ahaade, wallahi aad iyo aad ayay uga heleen. waayo qof kasta marun buu 17 uu yahay uu de su'aalays weydiiyay, marka qof kasta way taabatay sheekadan. luula cali ismaaciil oo ah soo saaraha filimka dhalinyaro oo warramaysay cabdiraxmaan cali dhimbiil ayay taasi ahayd. halkan dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa tahay bal aynu ku noqonno wararkii koroonaha ee maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya dhibaatooyinka iyo saamaynta gaarka ah ee uu sababayo cudurka COVID-19 ee dunida ka dilaacay, oo si mugle loogu baraarugayo dhibaatooyinka kale ee xaaladda cudurkani keenay gaadhsiisay dadka nugul ee aan haysan waxyaabaha aasaasiyaadka waa nolosha iyo nadaafadaba sida biyaha iyo saabuunta. waxaana dadkaasi nugul u badan yihiin dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha aan duruufahoodu fiicnayn ama kuwa dalalkooda gudahooda ku barakacay. sacdiix xuseen axmed oo madax ka ah xera ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay oo ku taala Garasbaaley oo ah aan idhaahde deegaan ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa dhibaatooyinka haysta dadka xerada ku jira waxay uga warantay xasan sheekh cumar oo khadka telefoonka kula xidhiidhay. cudur horta qoftu waxay ka baqdaa markay maanta waxay cunto haysato. dadkaanu waa dad dhibaataysan, waa dad qaxootiya, waa dad jidkii ka xirmay, laamigii xamar iyo afkooy wuu xirmay. cudurkaana yimiday, waa ka sii daray. qofku meelay u shaqo tagta male, meelay aada male, iskool waa fasaxan yahay, dugsi waa fasaxan yahay. dhibaato inteeda la egaa haysta baka xoog ku noolay ahay. alyoomay raadin jireen, wax kayda ma laha. alyoonkay gafeen, waa iska joogaan. waxaa dhibaatadaas haysta maamul. waayahay, dhibaatadaasi aad ka hadlayso hadda waxaa ku soo kordhay fayraskan corona ee faafaya ee guud ahaan caalamka saamaynta ba'an ku yeeshay. bal dadkan barakacayaasha ah ee aad horjoogaha u tahay nooga waran, ma heli karaan waxyaabaha muhiimka u ah markay timaado in cudurkaasi laga feejignaado sida biyihii ama saabuuntii? maama qofa waxay cunto aan haysan oo dhibaata hayso ma heli karto saabuun waxay ku gadato, ma heli karto biyo hadday hesho saabuun ma haysato. qof nooligiiba aan haysan ee yaa maanta xabad roodii kuu gada miyay heli kartaa saabuun iyo faraxal iyo adduun? ma heli karto. dadkan barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garasbaaley intay la egyihiin tira ahaan? wallaahi xeryuhu aaday u badan yihiin. aniga kiilagay 1572 qofood aan hayaa oo 650 qoys ayna lahaynin hoy la'aan bay yihiin, oy ka yimideen jinaale, oyna bacayna haysan, oo wax ay haystaan ma laha. qof beeraaley dad iska ahaay oo waxaa iska qabatay dagaaladii wixii kor qabsadeen, waa taqaan dhibaatada haysato. hoygoodina waa ka soo barakaceen, hoy kalena ma haystaan, bac ma haystaan. biyay heleen haddeera qola konseen la yidhahdaa biyo siisay, laakiin wax ay haystaan ma laha. waayahay, fayraskan corona waxa uu saamayn ku yeeshay dhinacyo muhiima sida dhaqaalihii iyo isu socodkii.
haddii aad tihiin dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka muqdisho muxuu yahay walwalka ugu weyn ee aad qabtaan hadda ilaahay ayaan baryay walwalaan qabnaa anagu saabuun haddaan u gadno haddaan oomo yar u gadi karnaa qoftaan sii karno anagu intaasoo qof ma sii karo qof haddaan u gado qof kale ma awoodo dadku waa ilmoolooyin ilmihii waa isgarab joogaan habrihii waa isgarab fadhiyaan dadkii meelay u soofaan male shaqa ma jirto waa isku ag ufacaayaan hadday rabaan qanadii way wada qaadi karaan laakiin allihii subxaana watacaala ha ka badbaadiyo waa dhibaata iska haysatee ma jirtaa ilaa iyo hadda wax wacyigelin ah oo loo sameeyey dadka barakacayaasha oo la xiriirta xanuunkan fayraska corona oo ah inay dadku kala fogaadaan ama ay ilaaliyaan nadaafadda guddoomiyaha degmada garas baaley ah maalin noo soo diray waa la wacyigeliyey halkaas maalin aan aragnay wax wacyigelina ani kaamanka aan joogo kuwo kale kama warqabo ugu dambayntii marka hadda rajadiinnu maxay tahay waxaan rajeynayna horta ilaahay baa wax laga rajeeyaa waxaan rajaynaynaa adiga ilaahay hadda noo soo kaa diray inaa cod dheer iyo cod gaabanba aad ku gaadhsiisto bulshada ku dhegaysato inay dadkaanu ayna faraxal haysan iyagoo qutulyoon aana haysan muxuu ahaay magaaladii oo dhan soo xirantee la yidhi meel kasta waa xiran tahay meelay aadaan ayna aqaanin tii oo soo tuugsan jirtay cid uma tegi karto cuduraa qabtaa iga tagaa leeyahay qof socota waa la iska ilaalinaa waa taqaan kii xamaali aadi jiray iga tag waxa ii xamaalinaa la leeyahay kii ragax aadi jiray waa eber dhibaataa hayso ku filan sacdiye xuseen axmed oo warramaysay xasan sheekh cumar ayay taasi ahayd bal haatanna xagga iyo masar dhegaystayaal hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dadka reer masar ee qaaday cudurka coronavirus boqolkiiba 13 yihiin shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta dalkaas ayaa muddaba codsanayay inay helaan agabka badbaadada ee ay u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ee dadka fayrasku ku dhacay dabiibaya oo ay baahi weyn u qabaan xarumaha caafimaadka ee dalkaas oo markooda horeba aan xaaladoodu fiicnayn masar oo ah dalka ugu tirada badan dunida carabta ayaa ilaa haatan xaqiijiyey inuu cudurka covid-19 ku dhacay 3,000 oo qof iyo dheeraad waxaanay WHO sheegtay in tirada dhimashada ah ee 7.6% ahi ay tahay mid aad u badan saali nabiil ayaa warbixintan qaahiro ka soo dirtay cabdiraxmaan nabiil ayaa soo jeedinaya maalmahan haddii aad ku lugayso qaahira way adag tahay inaad aragto hal qof oo xidhan gacmogashi ama qalabka wejiga iyo sanka lagu xidho dad badani laabta ayay isgelinayaan iyagoo isdhunkanaya si ay si diiran isugu salaamaan kala fogaanshaha la sheegaaba waa u hadal ee ficil kama jiro magaaladan mashquulka badan cabsida coronavirus waa u warka nolosha caadiga ah oo waxaabad mooddaa inaanay ogaynba inuu jiro maalmihiisa u dambeeyey waxaa jiray qayladhaan baahsan oo ku aadan in dalkan uusan u diyaargaroobin fayraska safmarka ee korona xilli waaxihiisa caafimaad aysan ahayn kuwo adag cisbitaallada guud nadiifiyayaashoodu waxay masaxayaan dhan walba oo cisbitaalka tallaabooyinka amniga ayaa la adkeeyey laakiin shaqaalaha caafimaadka ee waddanka oo dhan ayaa ah kuwa ugu walwalka badan dhanka caafimaadkooda tiro badan oo ka mid ah ayaa dhowaan laga helay fayraska korona waxaan la hadalnay dhakhtar jooga cisbitaalka dadweynaha oo diiday in la aqoonsado magaciisa cabsi darteed siiba in lagu dhibaateeyo shaqadiisa dhaleecayntu ma aha dhaqan laga jecel yahay dalkan laba aynu saaxiibbaan ah ayaa eed u soo jeediyey kormeerahooda maadaama ay haysan maaskarada qalliinka loo isticmaalo wuxuuna ballan qaaday in uu dhibkooda uu xallinayo wax yarun kadib markii ay meelaha xan ku wadwadeen 2 toddobaad kadibna kormeerahoodii cudurkii ayaaba laga helay waxa aan hor taaganahay xarunta caafimaad ee kansarka ee ugu weyn waddanka oo ku taal magaalada tanqaahira waxaa buuxi jiray bukaanka iyo dadka soo booqanaya qaarkood xitaa waxaa marka ay buuxsanto ay ku sugi jireen halkan waddada laakiin usbuuc ka hor ayaa qayb ahaan la xidhay waxayna isu beddeshay xarun lagu tilmaamsado coronavirus iyadoo in ka badan 20 shaqaale caafimaad oo halkan ka howlgeli jiray ay xanuunkaasi qaadeen dhowr cisbitaal oo kale ayaa sidoo kale si buuxda ama qayb ahaan loo xidhay sababa fayraska oo ku dhex faafay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaad sida laga soo xigtay bangiga adduunka waxaa ku soo beegmaysa sariir kasta oo cisbitaal oo dalkana ku dhowaad 1,000 qof oo masriyiina isla sidoo kale waxay xog kale muujinaysaa in 2 dhakhtar keliya ay ku hagaagi karaan 1,000 qof ee dalkan u dhashay ee bukaan u noqda xanuunkan dadka aan la hadalnay waxaa ka mid ah Mona Mina oo hormuud u ah ururka dhakhaatiirta unadooda xuquuqda dhakhaatiirta
timaheeda jilicsan ee caddaan xigeenka indhaheeda basaasku ka muuqdo iyo wejigeeda oo cabsi laga dheehan karo ayay ii sheegtay hadal u dhigan. waa wax aan micno u lahayn in la isku halleeyo qalabka difaaca goor xaaladiiba ka sii dartay. tani waa waxa faafinaya cudurka. dhaqaatiirta ama kalkaalisooyinka looga shakiyey in ay xanuunka qabaan waa in la karantiilaa oo kadibna la baaraa. maxamed isna waa dhakhtar da'aadda dhexe ah. waxa uu ka shaqeeyaa cisbitaal ay joogaan ku dhowaad 160 bukaan oo qaba corona. waxaad moodaa inuu ku hadlayo afkii dowladda. markii aan bilaabay shaqadayda wax weliba waa ay yaaleen, laakiin markii bukaanno badan la keenay wixiiba way yaraadeen. beddelkii 500 oo weji xirasho ah maalintii waxaan u baahannay 1500, laakiin dhibaatada si dhaqso leh ayaa loo xalliyey. 2 maalmood gudahood waxay noo soo direen 2 laab tiradii aan dalbannay. iyadoo masiibadani ku habsatay dalal kale, masar run ahaantii waxay sahay caafimaad u dirtay talyaaniga 2 jeer. tallaabadan ayaa lagu dhaleeceeyey xilli ay cisbitaallada guud xaalad suququl ah la daaladhacayaan. laakiin wasiirka warfaafinta Ozame Haykel ayaa iska difaacay arrintaas. haddii ay jiri lahayd caqabad dhanka qalabka ah waxba umaana dirneen. tani waa fariin siyaasadeed oo taageero. talyaaniga waxaa ka jira dhibaato weyn, marka waa inaynu taageernaa. laga yaabee in maalin aynu u baahanno isla taageeradaas. masaaridu weli lama ay kulmin dhibaatada corona, laakiin haddii fayraskaasi si dhaqso ah u fido way eedi doonaan. xarumaha caafimaadka ee dalkuna ma kari doonaan, baajintiisuna way adkaan doontaa. warbixintii saali nabiil qaahira ka soo dirtay ayay taasi ahayd. bal haatana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey dunida iyo xaaladda covid-19 halka ay marayso waxaa inoo haya ciise xaji cabdille ciise. axmedow, madaxweynaha maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in isniinta gobolada ugu badan dalkaasi qaarkood oo xukuumadda maraykanka waxay sheegtay in Texas iyo Vermont loo ogolaan doono in dib loo furo ganacsiyada qaar. waxa uu sheegay in fayraska haatan uu dhaafay halkii ugu sarreysay. gobollo dhowr ah ayaa madaxweynaha ku taageeray iyagoo dalbanaya inay shaqada dib ugu laabtaan. waxayna ku andacoonayaan in tallaabada guryaha lagu joogo ay aad u adag tahay. hase yeeshee madaxda qaar ee gobolada ayaa ka digay in haddii si dhaqsiya loo ogolaado xayiraada ay horseedi karto dhibaatooyin dheeraad ah oo la xiriira xanuunka covid-19. axmed, kuuriyada koonfureed oo ah goobtii labaad ee caalamka cudurka uu si ba-an fara ba-an ugu hayey markii shiinaha laga soo tago, oo bishii 1 iyo 2 aad ula daaladhacayeen cudurkan, oo arintaasi ka aamusnaa oo haatan si aada ula tacaalay cudurkan, ayaa haatan 24 saac ugu dambeeyey waxay diiwaangeliyeen 8 kiis oo cusub. waana arin lala yaabay oo aad u murugo gelisay dalkaasi, iyadoo dalkan 2 bilood aan laga soo sheegin waxkiisa. tirada dadka dalkaasi ku dhimatay ilaa aminkan waxay maraysaa 234, iyadoo tirada dadka cudurkaasi qabana ay gaartay 10,000 oo qof, halka kuwa ka badbaadanaya aad u badan yihiin. falastiin, arrinta ugu yaabka badan axmed waxay tahay nin reer Falastina ayaa ka cararay goobtii lagu karantiilayo oo cudurka looga daaweynayo. hase haatee reerkii dhex tagay oo uu booqday uu islahaa oo cudurka ka carar. ka waran axmedow, haddii reerka lasoo wada ururiyo iyagana la keeno goobtii karantiilka, waa arin la yaab leh. marka ummadda waxaan ugu degaynaa qof walba oo cudurkan qaba inuu ku ekaado goobaha lagu karantiilaya ama dadkii laga shakiyaba. aad iyo aad buu mahadsan yahay ciise oo wararkii ugu dambeeyey covid-19 inoo soo koobaya ayuu kaasi ahaa. idaacaddii subaxnimona intaas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaayo waxaynoo ballanaa 2 duhurnimo inta ka horaysa sidaas iyo nabadgelyo.